عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال دغيستيال kuna soo dhawaada channelkeena Xis Groups oo runtii kaga barateen 10 aad iyo aad u muhiimsan waxaan bilaabi doonaa maanta maadada la yiraahdo Camtasia Studio ama 10 hore aan kugu ballan qaaday oo ahaay editing software kaas oo qaadan doono waxa la yiraahdo Camtasia Studio oo runtii dadku inta badan isticmaalaan aadna u fudud qaabka loo isticmaalo fuudya marka waxaan baran doonaa qaabka loo soo download gareeyo iyo waliba qaabka faylasha loo soo geliyo ayaan maanta casharkan idinku barayaa insha Allah aan soo download gareeno waxaad tagtaa browserkaada aad isticmaalayso Chrome aad isticmaalayso Firefox aad isticmaalayso hal yiraahdo Internet Explorer anyway mid walba isticmaalayso fadlan browserka tag gaar ahaan search-ga isticmaalayso hal yiraahdo Yahoo Google laakiin Google-ka uu fiican marka google.com booqo dhimo leh qaybta search-ka tag ama dhimo waxay waa isku mid waxa ku qorta hal yiraahdo Camtasia Studio 8 free download qor marka waa ku soo qabanaya marka ku soo qabto marka ku soo qabto soo jeedin waa linkiga waxa waaye labaad waa download Camtasia Studio 8.1 free click ku sika in your sub automatically asa marka kugu soo dejinaya marka start soo deji kadibna insha Allah ku shubo oo fuud yahay marka ku shubato programka last ugu dambeeyo wuxuu ku siinayaa laba option oo ah inaad gadato oo aad haysato inaad soo gadatay oo aad haysato waxa la yiraahdo landscape iyo inaad rabto waxa la yiraahdo trial ama inaad fiiriso qaabku shaqeynaya dadka anfac ka daagatid marka waxa loo ogolyahay trial oo 3 maalmood marka waxa isticmaashaa trial ka isticmaal 3 maalmood kadibna insha Allah waxay noqonaysaa inaad ka dileedo oo aad mid kale ku shubto marka trial kaas aad dadku isticmaalaan inta badan marka waxa isticmaali kartaa trial kaas marka hadda aniga computerkayga oo ku jira oo waan isticmaalaa waxaan u isticmaalaa inaan casharada asaan ku sameeyo hadda aniga ama aan ku duuba halkaan yeelaa marka ayrada Camtasia shaashadiisu waa sidaan runtii tusaale waxaan doonayaa marka shaqadan kooda qabanayno waxay tahay maanta waxaan leenahay import media qabayna ama waxaan doonaynaa inaan soo gelino faylal ama muuqaalna soo gelino halkaan kadibna aan cadeyna bal cabirkiisa iyo qaabka ugu wanaagsan oo loo saari karo waxaan la yiraahdo import media marka import media dhaho runtii hadaan muuqaalka soo gelinaysa wax kala maahan marka muuqaalka meesha uu kugu jiray ayaa taqaanaa fila anaga hal cashar aan soo galeynaa oo aan hore u sameeynay oo aan ka sameeyay hal yiraahdo HTML ka sameeyay marka halkaan marka casharka soo geliso wuxuu aadayaa qaybtaas clipping ku aadayaa marka clipping ka aado right click kadibna waxa dhada add to timeline playhead kadib halkaan ku darsamaya marka waxa u jeedaa cabirkan uu qaldan yahay marka halkaas ku dhufata u jeedid 100kiiba ay ku dhufsado 100 cabirka iska bedel waxa uu fiican la yiraahdo automatic up to 720 kadib okay marka kadib shaashada la soo siin drag and drop waa taqaanaa kadib okay marka qaabka faylasha loo soo geli karaa Camtasia Studio insha Allah casharka labaad waxaan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo callouts aan ka sameeyo doono runtii 2 cashar ayaan ka sameeyo doonaa marka insha Allah la socdo wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh